السلام عليكم أصحابتيدي ومركلو أنيقو عباس أو قلاصة عصب نيسو جيدينايو قلاصة سو إنمي عصب إنميغاس ديمون سلاير سوماليغيسنا oo dilaaga shayaadiinta carabigina waxa lagu dhahaa qaatilo shayaadiin waa inimi kale oo xiiso badan oo dagaal iyo qiso qurux badan isku wada jira sida weerarka Titaniska wuxuuna kamid ahaa inimida targetka noo ah ina bilowno isbuucu hore la soo dhaafay fiidiyoga u dambeeyay soo dhigay dhanka YouTube ayaa description-ka ku sheegay in inimi cusub bilaabi doono inimigaas oo dilaaga shayaadiinta taasna micnaheedu maaha in weerarka Titaniska naga joogsaday ay wuu noo socon doonaa ilaa ka dhameynayno weerarka Titaniska waa hadafka janalkeena waana inimiga badana aad joogteen doono laakiin muhiimada ayaa ah in aan bilaabno inimida ugu muhiimsan si aan ula socno inimidaas inimiga dilaaga shayaadiinta hadda la taagan yahay waxa soo degta 3 season seasonadiisa kalena waa dhiman yihiin intee seasonadaas kale ay soo degin waa inaan sii bilaabana si aan ula socno asxaab badan ayaa waxa arkay inuu xiiso ku hayo inimiga loo yaqaan weerarka Titaniska laakiin saaxiib waxa ku sheega hadii aad ka hesho inimiga loo yaqaan weerarka Titaniska anigana waxa balan ka qaada in inimigana ka heli doontid wala sidiisana aad joogteen doontid igana raali noqdo isbuuci aan iga maqnaa waa cudurdaar aan sheeganaya saaxiibiyaal laakiin waxa run ah ina ahay arday adiga kala oo jaamacad dhigto oo imtixaanaad fara badan soo foodahayo iyo ciladooyin fara badan oo xalkeeda mar walba ka taliyo laakiin taas micnaheedu ma aha inaan joojinayno qulaasooyinkeena waa wadayna ilaa hadafkeena aan ka gaarayno waana ku mahadsantihiin wankii subscribe-kii ugu horeeyay aan gaarno mahadsanid saaxiibiya wallahi waan jeclahay dhiirigelin intaana iga badanba si xalqadeena u bilaabano aan ku salina xabiibkeena rasuulka sallallahu alayhi wa man tabi'a li ihsanihi ila yawm ad-din ana u duceeyna walaalahina Falastiin ilaahi haraadka iyo xanuunka Allah ka qaadee bis like iyo subscribe-ka ay loobin xalqadeena noo bilaabo qisadeena quruxda badan waxay ka bilaabanay wiil yar oo reerkiisa ka falqaaday geerida aabihiisa kadib hooyadiis iyo walaalihiis wiilkaas waxaa loo yaqaanaa Kamado Tanjiro iyo reerkiisa waxay iska nool yihiin dhul baraf ah oo doog ah asiga iyo hooyadiis Kai iyo shantiisa walaal oo kala ah Shigeru iyo Hanako Rokta iyo Tak iyo walaashooda weyn Nezuko Kamado Tanjiro wuxuu ka shaqeeyaa dhuxul asigoo sidoo kale mas'uul ka yahay dalabaadka guriga loo baahan yahay laakiin kalgaceelka oo hooyadiis ka helo iyo farxadda walaalihiis ayaa ka awood badan howlahan uu haayo runtii waa nolol lagu yiraahdo nolosha Tanjiro in la helo qoys saan iskaga faraxsan waa wax qof walba uu rabo waa nolol qurxoon oo Tanjiro ku noolaa walaashiis yariista Hanako ayaa ka codsanaysa inay u raacdo magaalada Tanjiro asigoo codsigeeda tixgelinayo ayuu wuxuu ku leeyahay marka dambe aad soo laabto ayaa israacina waa balan ka qaaday sidoo kale Shigeru wuxuu rabay inuu raaxo laakiin Tanjiro walaalihiis wuu qanciyay inay joogaan asigoo adeegsanaya kalgaceelkiisa iyo dabeecadiisa wanaagsan carruurta sida loo hadlo ma aha wax loo dhashay wax la barto ee waa wax wanaag iyo kalgaceel ka rabaan Tanjiro intooda buu ahaa Tanjiro walaalkiisa Tekiyo oo ugu roon ilmaha kale ayaa wuxuu ka codsanayaa inuu si ilaaliyo walaalihiis inta uu ka soo laabahay guriga wuxuu leeyahay waxas ani xataa waa sameey lahay laakiin waxaa jeclaa lahaa inaan israacno Tanjiro walaalihiis oo dhan aad ayay u jecel yihiin runtii sidoo kale Nezuko waxay xambaarsan tahay yaraanka Rokta waxay leedahay maalinta aaba geeriyooday ilaa hadda wuu iska murugsan yahay markaas wuxuu leeyahay dib male waa ka baxeena asiga dabiicadiisa u soo laabanay waana sii macsalamiyaha markaas qoyskiis wuxuuna wajahaa dhanka magaalada si uu soo iibiyo dhuxusha Tanjiro wuxuu u dhashay dareenkaas oo wax walba ku orin karo mar walba intuu jidka marayo waxa uu soo oray dhiig taasna waa wax Tanjiro oo mar walba uu la yaabo Tanjiro guriga kaliya xataa ma laga jeclay xataa bulshada magaalada xataa way jecel yihiin qof kasta dhuxushiisa inay ka gataan u baahan yihiin waa wax oo daacadnimiisa ku kasbada Tanjiro ninna ku haysto inuu alaabta ka jabiyo wuxuu leeyahay Tanjiro waa ku baryaa kaale dambigan iga badbaadi aniga kaba jabinna ee ogaa wax ka jabiyay waa ku baryaa xirfadaada uritaankaada adeegso Tanjiro markaas dareenkiisa uritaanka markuu adeegsado wuxuu ogahay inuu asiga ahayn wixii jabiyay oo jabisay mukulaal urkeeda waxaa ku soo urooy mukulaal waxa u maleeyahay mukulaal inay jabisay markaas Tanjiro dhuxushiisa soo dhameysaa waxayna ku naqay habeen inta dhinaca hooyaadka xaafadiisa sii socdo ayaa meesha degan wuxuu leeyahay Tanjiro xiliga inta u socotaa mudan xaafadeeda u socda dhinacan xaafadeeda iga jiro wuxuu leeyahay ninka gobolka inuu ku dhac mujeedid miya xiligan jidka halis waay uma jeedid miya kaale caaw aniga ilahoy Tanjiro wuxuu leeyahay waa maasantaa mudan waa sii socon karaa ninka markale ugu celin wuxuu leeyahay madaxdeega iska dhaafi soo gal inta ay shayaadiin soo bixin Tanjiro warkiisa tola yaabo gudaha iska soo galaa Tanjiro markaas asigoo cashinaya ayuu ninka wuxuu weydiinaa adeer shayaadiinta aa ka hadashiyay yihiin wuxuu ugu jawaabaa waa makhluuqaad bahala ah oo habeenka soo baxaan si ay dadka u cunaan waa sababta sidaas ku dhahay habeenka inaad socoto wax fiican ma ah ee cuntada marka dhameysto iska jiifo si aad subaxii u dhalmato
Tanjiro wuxuu weydiiyay shayaadiinta ma awoodaan gudaha inay la soo galaan wuxuu dhahaa haa maxaa diiday way awoodaan inay la soo galaan hayo waayihii anigu dhammayna cuni karaan markaas wuxuu leeyahay waxaa jira dad naga difaaca shayaadiinta oo mar walba ugaarsado dadkaas naga difaacaya anigu wax kama qaban karno ee iska jiifalanka ku diminaa markaas Tanjiro wuxuu dhahaa hadalkan ra'ayday ugu sheegtay in adduunka shayaadiin ay ku nool yihiin subaxa markuu waaga bariyo Tanjiro wuu macsalaameeyaa ninka wuxuuna wajahaa dhanka xaafadiisa inta uu jidka ku jiro Tanjiro waxa uu soo uraya dhiigaas oo soo uraya si zaa'id ah Tanjiro intuu naxo hal mar ordaa waxaa dhacaya wax naxtin ah oo Tanjiro xataa u sigtay inuu neefta ku dhago Tanjiro wuxuu arkaa walaalkiisa yariiska iyo Nezuko dhulka yaalaan jirkooda dhan wada dhiig ah Tanjiro intuu ordo wuxuu leeyahay waxaan sidee ku dhaceen maxaa dhacay maxaa sababay sidee ku dhaceen waxaan hadal ma wax lagu kal gaarahay markuu geeskiisa bidix fiiriyo wuxuu arkay naxtistiisa ugu weyneed wuxuu arkay familkiyo wada jarjaran dhamaantooda dhan wada meed ah hooyadiisa walaashiisa Hanako labadiisa walaal Takiyo ee Shiguru dhamaantood waa wada meed Tanjiro wuxuu hubiyo rugta Nezuko inay neefsanayaan wuxuuna ogaaday Nezuko kaliya inay neefsanayso Nezuko kaliya nafta ku jirto sidaas daraadeed waa inuu magaalada geeyo si uu caawin u helo Tanjiro wali wuxuu isweydiinayaa waxaan amarkay dhacay anigii Tajiri ma inta jiif ma qoyskayga saa loo baabiinay allo maxaa guul dareesta ahay Tanjiro neefta xataa kuma neefsan karo qabowga jira awgeed lugaha xataa wuu ka tafar dhigay wuxuu taagan yahay lugay socod magaalada wax yar leenoo jirtaa aniga ma ogolaahay Nezuko xataa inay dhimato wax walba ee dhacaa Nezuko waa badbaadina xataa nafteeda ku waayay intuu su'aalaha isweydiinayo ayaa Nezuko waxa ku dhacay wax waraabu camal labadoodana buurta isla dhacayaan Tanjiro markuu buurta ka dhaco wuxuu ku dhacaa barafkaas ayaa badbaadinayo halka Nezuko ay hal mar ay miriqday Tanjiro wuxuu raadiyaa Nezuko laakiin wuxuu arkay iyadoo geed meel taagan intuu u tago wuxuu leeyahay Nezuko maxaa kugu dhacay intuu la hadlayo hamar afkala soo haadayo wuxuu iska celiyaa masaartii uu watay wuxuu leeyahay Nezuko shaydaan ay noqotay sidee ku dhacday waxaas waa hadalka adeerka xalay ii sheegay laakiinse Nezuko waa shaydaan ah macquul ma aha taas Nezuko yaraanteeda oo dhan bini aadan ahayd laakiin Nezuko urkeeda wuu isbedelay taas ma aha Nezuko inay ayada sameysay Nezuko waxay isku dayaysaa rugta inay difaacdo gacmaheeda iyo afkeedana dhiig ma lahayn laakiinse waxa jira ur kale urkaas oo guriga dhanka soo urayay Tanjiro caadi ma aha intuu su'aalaha isweydiiyay ayaa Nezuko awood jirkeeda kobcayo wuxuu leeyahay awood jirkeeda aad u ziyaaday inta gurigaas aniga xalay si raaxa u jiifay adinkana sida wuxuushnimadaas aniga baabi'inay waxa laga yaabaa inay aad u xanuunsanayeen xataa ay caawin ay dalbanayeen laakiinse aniga ma joogin iga raal noqon Nezuko imaashihiina aniga soo daahay ugu yaraan xataa Nezuko xataa badbaadiyo laakiin awoodeedu waa zaa'id markaas wuxuu leeyahay hasdhiibin Nezuko dadaal ha u ogolaan shaydaanka inuu ku xukumo waa ku baryaa Nezuko hasdhiibin ha noqon shaydaan ee adkayso intuu hadalka ugu celcelinay ayaa Nezuko ilinteeda wajigiisa ugu dhacay oo yaa Nezuko maskaxdeeda wali way joogtaa markaas nin seefiyahna oo soo ordaayo ayaa wuxuu dabca Nezuko inuu qoorta ka jaro markaasna waxa badbaadinaa Tanjiro Nezuko shakalkeeda u soo laabanay ninka markaa si fiican u fiirino waa nin ka tirsan ugaarsiyaasha shayaadiinta seeftiisna waxa uu qoran burburiyaha shaydaanka ninka wuxuu leeyahay maxaa bahalkan u difaacay Tanjiro wuxuu leeyahay bahal maaha ee waa walaasheeda wuxuu dhahaa ma waxaan ma walaashaada ah hal mar inuu dhinaciisa soo leexday ayaa Nezuko si ilbiriqsi ugu qaada waaw ninka caadi ma ahee wuxuu leeyahay ma hada ka dhaqaaqin shaqadeeda waa in shayaadiinta aad dilo walaashaadana waa shaydaan waa inaa qoorta ka jaraa Tanjiro wuxuu leeyahay Nezuko cidna ma dilin waxa jira ur kale gurigeena ka soo urayay urkaas oo waligeega aan urin qofkaas urkaas lahaa ayaa cideeda laay ee Nezuko ma aha mana aqaan sidee saa u naqata laakiin ninka wuxuu leeyahay warka waa iska cad yahay dhaawacyada jirkeeda ayaa dhiig shaydaan u gudbay sidaasna u naqata shaydaan waa shayaadiinta wadada kaliya ee ku tarmaan Tanjiro wuxuu leeyahay Nezuko inay dad cunto lagama yaabo sidee saas ku dhihi kartaa matii hadda ku cuni rato maysan ahayn Tanjiro wuxuu leeyahay waa qaldan tahay Nezuko inay qaniinto lagama yaabo mana uu ogolaahay qof kale waxaas inay ula fikirto Nezuko bil aadan u soo celiyaa waa balan qaaday wuxuu leeyahay taas macquul ma aha mar hadda shaydaan noqoto dib ugu soo laaban kartid Tanjiro wuxuu leeyahay ana wada raadiyay aan ku daaweyn lahaa wax walba ee dhacan ana daawadeeda keenayo ee waa ku baryaa Nezuko ha dilin qofku waxa ka dambeeyay ana raadinayo wax walba ana dib u saxayo ee waa ku baryaa Nezuko ha iga dilin Tanjiro inuu sujuudo wuxuu leeyahay Nezuko waa qoyskayga qofka kaliya ka haray ee waa ku baryaa ha iga dilin waa ku tuuga Jooji waa ku baryaa ninka intuu xanaaqo qiiroodo wuxuu leeyahay Jooji tuugmadan faa'iido lahayn hasiina kuwa kala fursad ay kugu dilaan haddii tuugmadan faa'iido lahaa leed qoyskaaga ma aysan dhimateen ma qof xaalkiisa tuugmadan iska ah ma walaashiisa daawo u keeni karo ninka qoyskayga dila soo helaa ma asigana ma tuuge iga daa ciyaarta daciifka wax caalamka faa'iido ku lahayn wadada kaliya uu qaado waa wax inuu tuugo oo kaliya si wuxuushnimana loo dilo waxa laga yaabaa shayaadiinta inay yaqaanaan sida walaashaada loo daaweyn lahay sidoo kalena waxa ogaataa shayaadiinta inay ku ixtiraamayna sida adiga u rabto
hana iga filin aniga xataa inaan ku ixtiraamayo taas ayaa runta ah wuxuu leeyahay sidee naftaada ugu soo hormarisay walaashaada ka hor mise ma ogtahay in adiga lagu dilo ayaa walaashaada la dili karaa ma sidaas ma ahayd sida walaashaada ku difaaci lahayd maxaa masaartada inaad soo qaadatay isoo adeegsan weysay maxaa difaacaaga hoos ugu dhigtaa dhabarkaaga ii tustay qaladaadkaas aad gasha oo dhan dhibashada walaashaada sabab u ah waxayba ahayd adiga walaashaada inaan la diloba oo wallahi ninka caadi ma aha ninka hadafkiisa ma aha Tanjiro inuu pressure geliyo wuxuu rabaa wax walba inuu gacantiisa ku qabsado oo madaxiisa hoos geenin diido wuxuu ka leeyahay ooyin hana murugoon waxaas waqtigaaga ha ku luminin waa ku dareemi karaa xilligan qalbiga ku xanuunoy qoyskaaga waa la laayay sidoo kalena walaashaada sheedaan ay noqotay waa shay aad u xanuun badan waa ku dareemi karaa inaad u baahan tahay inaad qayliso waana ku fahmi karaa laakiinse haddaa soo dhaqso lahay xilligan oo maalin barkeeda ku imaan lahay waxaa laga yaabi lahay qoyskaaga xilligan inay noolaa lahaayeen laakiin xilligan shalay wax ma tarto wax hore u dhacayna sooma laaban karo xanaaqaasoo laga yaaba inuu noqdo kii jirkaaga dhaqaajin lahaa wuxuu leeyahay walaashaada ma difaaci kartid mana daaweyi kartid xataa qoyskaaga xataa muu soo argudi kartid walaashaada iska ilow markaasuu Nezuko intoo qabto seefta ku mudaa Tanjirona intuu xanaaqo dhagax ku soo tuuraa laakiinse si fudud iska leexina Tanjiro inuu hadda dhiig iskaliyo wuxuu soo qaadanaa masaar wuxuuna u soo wajaha si toos ah wuxuu leeyahay doqonnimadaada ma aniga ma si toos ah isoo weeraree markaasuu seefta salkeeda garabka ugu dhufaa Nezukona waa naxay markaasna wuxuu la yaabaa wuxuu leeyahay aaw masaarta uu watay kor mu ka fiiri wuxuu arkaa masaartii si toos u soo socta woona ka leexaa wuxuu leeyahay geedka ku gabbanaa ayuu masaarta kor u soo tuuray wuxuuna ii malagay masaarta inuu wada laakiinse ma ahayn asiga wuu ogaa inuu ii guulaysan karin sidaas ayuu fikraddan ku degay walla Tanjiro caadi ma aha markaas Nezuko intii xanaaqday dhinaciisa u leexee wuxuu leeyahay way cuni rabtaa markaas wuxuu arkaa wax weligiisa uusan arag wuxuu arkaa Nezuko oo Tanjiro difaacayso oona u soo leexaysa dhinacii ninka ugaarsadaa ahaa wuxuu leeyahay intii ugaarsanimada ku jiray waxaa arki jiray shahaadiinta inaysan aqoonin wax waalida iyo walaal ah sababtoo ah baahidooda waa saa'id uma adkaysan karaan wayna cunayaan haddii u baahdaan laakiin gabadha ayadoo gaajaysan ayay xaggayga inta u soo leexatay walaalkeeda difaacusa wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa labadan walaal inay dadka kale ka duwan yihiin markaasuu seeftiisa intuu xareysto qoorta ka suuxiya Tanjirona wuxuu arkaa Nezuko agtiisa jiifto afka wax ugu jira waxaa lagu leeyahay hurdadaada ma dhammaystay hurdadaada haddaad dhammaysto waxaa u tagtaa oday lagu magacaabo Orokodaki odaygaas oo ku nool dhanka buuraha loo yaqaana Saigiri waxaa ku dhahdaa waxa ay soo diray Tomioka Giyu asaa wax walba ku kala sheegaya ee odaygaas u tag hadda qabowga jira awgeed ayay u fiican tahay laakiin qoraxda haday soo baxdo marnaha u ogolaan inay banaanka u soo bixiso wuuna iska sii baxaa sayfiyaanka Tanjiro markaas wuxuu u laabaha qoyskiisa si uu soo duugo wuxuu leeyahay iska cafiya laakiin balan waxaan iga qaadaa inaan Nezuko bini'aadan u soo celiyo waa balan aan iga qaaday markaas Tanjiro Nezuko inuu gacanta ka qabsado wuxuu wajaha dhanka buuraha Saigiri si uu la soo kulmo odayga loo yaqaan Orokodaki Tanjiro odaga ma la soo kulmaa mise ma la soo kulmaayo xageena ku dambeeyay Nezuko su'aalahaas oo dhan waxa ogaa doona xalqada soo socota haddii tahay janarka markii kugu horeysay saaxiib laag iyo subscribe noo saar si ii dhiirigelin lagu noqoto Tanjiro oo ugu dambeyn gaaray buuraha Saigiri Tanjiro iyo Nezuko oo la kulmaya shaydaankooda ugu horeeyay xalqada soo socota la kulankii macalinkiisa Kunji Orokodaki